raxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha qiimiga badan ku soo dhawaada weyn barnaamijkeena aroornimo saaka waxaa ka mid ah ciidamada amniga dalka Pakistan gaar ahaan magaalada Islamabad ayaa gabi ahaanba amniga magaalada si weyn u sugaya maanta iyadoo la filayo shirki Iran iyo Mareykanka kulankoodii labaad in uu ka furmo magaaladaasi iyadoo wali go'aan cad aan laga haynin wafdiga dhanka Iran wada hadallada uga qayb galaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa u soo socdaalay Islamabad waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay kulanka labada dhinac iyo xujooyin cad oo wali hor taagan wada hadallada iyo waqtigii xabad joojinta oo sii dhamaanaya cabsi hor leh oo muuqato qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontayna waxaa ka mid ah madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay ilaa iyo bilowgii dagaalka in uu ku hanjabayo baabi'inta Iran warbaahinta CNN-ka ayaa warbixin la yaab leh ka diyaarisay sida Trump uu isaga u leeyahay sababta inay adkaato wada hadallo walba oo la galayo waxaan ku hayaa macluumaadkii ugu dambeeyay arinta ku saabsan qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heenayana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa la sheegay in la xiri doono haddii uu cag soo dhigo dalka Hungary oo ah dal ka mid ah dalalka diiday inay u hoggaansamaan go'aankii maxkamadda dambiyada dagaalka ICC laakiin madaxweynaha cusub ee la doortay Peter Makia ayaa yiri waan xirayaa waxaa meesha ka baxaya ballanqaadkii madaxweynihii isagii ka horeeyay Victor oo laga adkaaday waxaan ku hayaa Netanyahu oo godkiisa biyo ugu soo galeen xarig loo diyaariyay haddii uu Hungary yimaado iyadoo maqal iyo muuqaal ayaan ku hayaa qodobka ugu dambeeyana waxaad ku maqli doontaa Professor Mohammed Marandi ayaa mar kale u sheegay warbaahinta gaar ahaan Piers Morgan in Trump uu been cad ka sheegay mar walba Iran qodobada iyo kuwa kale madaxweynaha cusub ee la doortay dalka Hungary Peter Makia ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka bixi doonin heshiiskii maxkamadda dambiyada dagaalka ICC isla markaana dalkiisa uu hoggaansami doono dhammaan shuruucda maxkamadda dambiyada dagaalka waxa uu sheegay Peter Makia in uu xirayo ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu haddii uu cag isku soo dhigo dalka Hungary waxa ay ka mid ahay dalalka reer Yurub ee qayb ka ahaa saxiixayaasha maxkamadda dambiyada dagaalka haddana ogolaaday Netanyahu inuu yimaado dalkeeda intii uu hogaaminayay Viktor Orban oo laga guuleystay doorashadii ugu dambeysay dalkaasi Viktor waxa uu ahaa xagjir gacanta midiga waliba Trump iyo Netanyahu saaxiib dhow la ahaa guul darro ba'an oo ka soo gaartay isagii xisbigiisa doorashadii ugu dambeysay waxaa la wareegay hoggaanka dalkaasi oo lagu wareejinayaa dhawaan haddana madaxweynaha la doortay Peter Makia war saxaafadeed uu siiyay warbaahinta ayuu ku sheegay in uu isagu diyaar u yahay inuu dalkiisa ku haya heshiiska maxkamadda dambiyada dagaalka isla markaana waxa uu xaqiijiyay in Netanyahu uu gacanta u gelin doono maxkamadda dambiyada dagaalka isaga iyo sidoo kale wasiirkiisii hore gaashaaniga Israel Yoav Gallant oo ahaa ninkii reer Gaza sheegay inuu cunnada ka jarayo biyahana ka jarayo markii uu bilowbanayay dagaalka haddaba aynu eegno warkii uu ku cadeeyay Peter Makia inuu xirayo Netanyahu. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt hogy le fogják tartóztatni. Nem kell nekem mindent elmondani telefonon, feltételezze szerintem minden állam és kormányfőről, hogy tisztában van ezek. waxa uu yiri intii uu hadlayay sida subtitle-ka laga garanayo wuxuu yiri Hungary waxay xubinnimadeeda ku sii jiraysaa ama ay ka mid ahaanaysaa siday hore u saxdayba ICC International Criminal Court cidii ay maxkamadda raadinaysa cag soo dhigtaan Hungary custody ayaa la geenayaa
xariga ayaa loo dirayaa waxaa lagu sameeyaa booliiska kadib maxkamadda xarunta booliiska waxaa la weydiiyey marka su'aal ahayd haddii Netanyahu uu yimaado miyaad xiraysaan kama duwana buu yiri dadka kale ee la raadinayo uma baahnin aan isbeeliyo magaciisa waxaa loo dirayaa xabsiga ninkii Netanyahu ah godkiisa biyo ugu soo galeen tani waxa ay cadeynaysaa isbedel weyn inuu dunida ka dhacay waxaa waliba inta ka daran xilligan aan barnaamijka duubayna wali Gaza waxa ku socota duqeynta Israa'iilna waxay olole ballaaran ugu jiraan militarigeeda iyo siyaasiyiinteeda dagaalkii Gaza inay si ballaaran dib ugu soo celiyaan wasiirka maaliyadda Israa'iil wuxuu ku celiyay xalay oo uu ka dalbaday Netanyahu inuu fasaxo mar kale in dib loo qabsado Gaza taas oo mar kale meesha ka saarayso heshiiska loo galay Sharm el-Sheikh waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa ciidanka amniga dalka Pakistan ayaa lagu waramayaa in ay bandow ku soo rogeen magaalada Islamabad xarunta dalka Pakistan oo la filayo maanta ilaa iyo bari inuu ka fulmo kulanka foolka ee la filayo inuu dhexmaray Mareykanka iyo Iran wali kulanka waa la ismari laayahay Mareykanka waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance halka Iran ay wali go'aan cad ka gaarin qaybgalka shirkaasi waxayna Iran leedahay go'aan ah mar walba oo aanu shirka ka qaybgalayna waa inay shuruud u ahaataa hortkow in laga qaado xayiraadda la saaray dekadaheena markabkii Iran la qabsaday in la fasaxo oo iyadu ku sheegtay argixisay inay qabsatay oo ay Mareykanku ka wado sidoo kale Iran waxa ay leedahay waxa qasaba in Mareykanka uu fasaxo xayiraadii lacagta Iran 20 bilyan ee lagu heshiyay haddaba wali Mareykanka waxa uu Trump ku adkeysanayaa in Iran xayiraadda ay saarnaanayso ilaa inta ay heshiis cad ka keenayso oo ay kala imanayso laakiin dhanka Iiraaniyiintu waxa ay ku adkeysanayaan inaysan diyaar u ahayn in ay wax heshiisa la galaan Mareykanka oo ay heshiis walba ka horeyso in marka hore la qaado cunaqabataynta lagu soo rogay dalkaasi gaar ahaan xayiraadda dekadaheeda labada dhinac marka waa la ismari laayahay waqtigan uu sii socdaa oo maanta ilaa iyo caawadii heshiis laga gaari waayo in la kulmo macnaheedu waxa ay tahay habeen dambe ay tahay xilliga ugu dambaysa